السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود هذا تاريخ محمد علي كلاي. يا كفكري إن باسكيل لحظي أوها فراها بلوغي قوله محمد علي، لكن تاسي وحقيق sanadii 1954 magaalada Louisville ee gobolka Kentucky ayay ahayd markii Maxamed Cali oo xilligaas magaciisa ahaa Cassius da'diisuna ahayd 12 jir laga xaday baaskiilkiisii. kadib Cassius waxa uu aaday qolalka jimicsiga waxa uu ka arkay askari magaciisu ahaa Martin, markaas oo isagoo xanaaqsan ku yiri Martin waa fiiriyaa qofkii baaskiilkayga xaday. Martin ayaa si jeejees ah ku dhahay marka hore feertanka soo baro. toddobaadyo gudahood Cassius ayaa gaaray guulihiisii u horeeyay ee masraxa feerka, taasi oo xigtay 27 sano uu ku soo dhex jiray feertanka. Maxamed wuxuu dhashay 17 January 1942. waxa uu ahaa feeryahan Mareykan ah. guulihiisii feertanka uu ka gaaray dhalinyaranimadiisii. Cassius waxa uu u go'ay feertanka, kaas oo ahaa waxa kaliya ee uu qaban jiray. xaqiiqdii intii uu dhowr iyo 10 jiray weligiis ma shaqayn, taas oo kaga soo caanbaxay wiilashii kale ee da'diisa ahaa. 18 jirkiisii waxa uu ku guuleystay 6 bilood oo ah Kentucky Golden Gloves, 2 bilood oo ah National AAM. dhowr bilood kadib waxa uu ku guuleystay biladda dahabka ee Olympic Golden Medal, waqtigaas oo ahayd sanadkii 1960. Maxamed Cali Kalaay marka uu feertamayo waxa uu ahaa mid aad u xoog badan, waxaana lagu yaqaanay feertanka aadka u heer sareeya. soo islaamidiisii markii uu tababarka u qaadanayay si uu ula feertamo ninkii aadka looga baqi jiray ee Sonny Liston ayaa Kalaay la kulmay Captain Zan oo ahaa imaam ka tirsan Nation of Islam. markaas ayuu Captain Zan isbaray Kalaay iyo Malcolm X oo ahaa afhayeenkii Nation of Islam. Malcolm iyo Cassius waxa ay yeesheen xiriir aad u wanaagsan, sidaas ayuuna uga mid noqday Nation of Islam. magaciisuna waxa uu bedelay Maxamed Cali. shaatigii feerka oo laga dhigay sanadkii 1967 waxaa soo shax baxay dagaalkii Vietnam. waxaa loo soo bandhigay inuu ka qayb galo. Maxamed waa uu diiday. diidmadiisii waxa ay dhalisay halku-dhiga ah wax muran ah inagama dhaxeeyo aniga iyo Vietnam. markaas kadib Mareykanka waxay wax kama jiraan ka dhigtay shaatigiisii feerka, sidoo kale waxaa laga dhigay biladiisii iyo baasaboortkiisii. waxaana uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee heerkaas qaranka ka joogay ee ka soo horjeesta dagaalka Vietnam. sanadkii 1970 ayuu dib ugu soo laabtay masraxa feerka. Maxamed Cali Kalaay 20 sano ee uu ku soo dhex jiray feertanka waxa uu noqday horyaalka adduunka sanadaha ah 1964, 1974 iyo 1978. sanadkii 1999 ayaa Kalaay loo aqoonsaday inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee soo mara caalamka qarnigii 20aad. xikmadihiisii Maxamed Cali Kalaay xikmadihiisii waxaa ka mid ahaa dagaalka kuma raaxaysto, laakiin guusha ka dambayso ayaan ku raaxaystaa. saaxiibtinimada waa shayga ugu adag ee uu caalamka sharaxaad ka bixiyo. iskuulka laguma barto, laakiin haddii aad saaxiibtinimada aadan baran ma jirto wax kale oo aad baratay. saaxiibtinimadu waa magaalo xiran oo kale, furaha keliya lagu soo gali karaana waa daacadnimada. allah u naxariistay Maxamed Cali Kalaay waxa uu geeriyooday 3 Juun sanadii 2016 wuxuuna ku geeriyooday dalka Mareykanka.
intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa taariikhdii dahabiga ahayd ee Moxamed Cali Kalaay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.